bada horta ulijeedada una meelun koyni ulijeedada meelun koyni sabab weyn galata oo yani laha ku xariiriyaa dareen una qabna dareenkaas oo una yani tiim ahaan ni dhaladii may haayay sidiiba umut wadan sida shaleediye umut umut sida shaleediye la kahor mari karo intii ata umut sida shaleediye oo umut la kahor mari karo intii ata umut intii aqliga lagu dhis مثلا haddii oo la era beledkuun gobolkuun Soomaaliya dhoon yani khayraad badan yaa ka jara oo beere ah oo badda ah oo yani walaagu oo khayraadka dabiiciga la eraaw yaa ka jara haddii walaagaas dhan ka jaraan qiyaasa kortee iyadoo walaagaas ka jaraan yani haddii injarna dadkii dhallinyaradii dadkii walbaraday xirfadda lahaay oo walaagaas xirfad iyo caqlo iska toosan ha kula bahan lahaay hooba injarna yani su'aal lis warshadaw may buaha khayraadka la sheegaw sidiisbu markaas may tare marka horta mays erneey umutun may baahantaa intii lukula tacaala dhinaga xirfadda dhinaga caqliga dhinaga walbarashada walbarashana si lin hormariyo walaagun librariga laleeye librariga may buaha yani iskool mae jaamacad mae librariga may buaha cilmiga la sheegaaw meelo uso fidhiyo marka may falo hayne intii horta ulijeedadaana yani saaska deeran haddii ilaahay er mithaala siinsiye يعني أود عقلها يعني ما يلريه والأو أيامه ما يلراه باهي والأو human capital يلراه معنيه يعني human capital كمية كجيدة يعني أود مسقنت قفك يلا كجيدة معنيه يا human capital كمركو مالا نجده كورة مركو والأو يعني مجتمع يا نجده كورة imagine هذا أو شخصية حتى هدي أو قفكون social capital قبل اللي ما يلكويده قفكون دad badan ka saamacnay hadii dad badan ka saas dad ku bersho hatta dad oo jagahaaya way dad cilmi leh way dad oo waana ka sii koro way qofkii laakiin dad badan ka saana wal weyn usu ku faa'iideyso koro male marka ujeedadaan ma yataa wala an ka horeeyo oo unu kulligaan intii ka mashquul ata intii umadun ku dhisa masqanta madaxweynaha koonfur galbeed yani ونميلون مهني رواينا شليديه مدوينك ما يفضلها أنت أنا سينشاجة تيم كون أو بروجكت هو كميت أي معنيه كميت أي ما يكودنها يعني أسلوب جالنتك قوة دي إرهي وراجيشنا أنين إسين كميت أها ساسك ودانين إرهي مركو أنو أوجيك نقبله مدوينا جانيو لكن أنهان ميني كنجرة جروب كي أما تيم كي ولاهم كشقيا يا إنك حساب تموها إن أنت إنك جرة مدوين إذا أن ما هتسنت مركا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدقمة بيضاء رمتي ميلها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت أسكو بعد رمتي جيك فرحة أنا وكهذا لو مجا إسكولة الدقمة بيضاء فرحة أنا ملها كوب كرة ما يوالي والباهدي إن بدن نهايتي يجيك ما إلهي سورة جليي إني سورة جلان إن شاء الله تعالى مذهبنا كهوري بروفيسور كوسو إيو تيم شيء إذا كما هنجانا أنا وكهذا لو مجا إسكولة الدقمة بيضاء باهي بدن أون نهايتي يجيك ما يبوا كوبهاينا فرحدي درتيه وركعت مكدير ذكره إن شاء الله تعالى حبواينا إذا هنبواينا إذا أنك فرح سنة بإذن الله تعالى مدعينا جزاك الله خير لنا
brofesorka saas oo kale tiimshay gudoomiyaha saas oo kale oo degmada baydhabo isuuna runtii dhinishay ku suuragalay dhammaantiyo hadhowaayana maktabadan caamka ee suubiyahay mayna rajeeyane haddii uunayna baahda walbarashada inay walbadan ku faa'iido doogno biidin illaahi tacaala baahidiina nahayti insha allahu tacaala waana hadhowaayana eedanag mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu faraxsanaa maktabadan oo koonfur galbeed oo baydhabo degmada baydhabo waa mid muhiim haytay oo limbaahanahay waay sidaa daraaddiye brofesoorkii bahdiisba maxad ballaarangaan jeediye horumarka dalka lakafadow la hormariya kowka eta madaxweynaha koonfur galbeed maasha allah nasiib buu leeyahay waxyaalo badan oo fara badan buu halkaasina u qabtay oo marna laga hilmaamo korna tan baa kowka ah yacni muxuu ahay tangaa kowka ah wal kala badan kalena qooyi doonaa qofka haddii uu hoggaan ay muwaadin ay oo dacad ay dalje iyo daljeen hormaraya aad iyo adan kambaliyeye way maleeyay arrin muhiim ah oo shacabkan amase dowladda koonfur galbeed muhiim ayaan talishaanay وهدوان إذا هدوان إن شاء الله وأنا كفرحسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينك لك مرتق هذه حفلة مهم كن خيركم فرق البيت سوماليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحونها كون فرق البيت مدن عبد العزيز أكو هذا لدونا مهمة إيو نيتوي ولا إيالتا مكتبة مدين كوريتي خيركم فرق البيت سوماليا قران قبل كون فرق البيت نصيبا والتي دغمده بايدو ان la kordhisan macnaha ay ujeedada la kulay ii walaa iyo xambaarsan guud ahaan wadana madaxweynaha dhaw walilaysa guudanka ma nagaana aqoon-yahanada reer koonfur galbeed Soomaaliya haan gudaha rooga haan banaanka jaraan oo professor Kuusow inka weynye gorashadiyo ii garaadsho iyo haskadayoosho inii maktabadan lambaahan gorashado ma nagaana meel dawladan ku jarna malha ka hiridow walno malku suubii karo in dadka banaanka jaroor heer koonfur galbeed aqoon-yahanada ah yahan gudaha roogan iyo investment galiya ama waldadso walan talaan iniyo gobadaan iska deegaan nafteed dawladnimada hirgeliyay law nidaam ay kala dambeyn in maamulka kalsooniya an jarfana malaha kiirida fana marka warka inta ka koobe madaxweynaha ka dhawaaye mudana madaxweyne soo dhaw maamulka gudoomiyaha degmada iyo maamulka gobolka bahda waxbarashada aqoon-yahanada reer koonfur galbeed dhalinyarada ah oo hogaaminaya professor Kuusow wuxuu jaanis u helay inuu dhalinyaro yaryar oo maskax fiican uu saaxiibo la noqdo marka waxay ka mid tahay noloshiisa hadda u bilaabatay dhalinyaro noqday isagana marka hambaliyo nin walba dadka uu nool yahay waxay yihiin uu yahay saxaafadda iyo ka qaybgalayaashan xafladan kulli salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan runtii sharafay noo tahay inaan maanta inta isugu nimaano dhagax dhigayno maktabaddii koonfur galbeed. maktabaddii baydhabo ma aha, waa maktabad loo suubinayo koonfur galbeed oo dhan, dadka reer koonfur galbeed oo dhan ay leeyihiin. waxay ka mid tahay horumarinta iyo kor u qaadinta waxbarashada dadka reer koonfur galbeed yay bilow u tahay oo ka mid tahay qaybtii ugu muhiimsanayn ay tahay. haddii bini aadanka aanan maskaxda laga dhisin oo aan wax la barin oon horumar maskaxeed uu helin oo horumar aqooneed uusan helin ma suurtagelaysa in jahli iyo faqri iyo dhibaato iyo ciriiri in laga baxo. marka waxyaalaha muhiimadda noo ah oo priority-ga koowaad aan siinay inay ka mid tahay waxbarashada, meel dadka reer koonfur galbeed ay leeyihiin oo maktabada oo manhajkoodii yaallo oo taariikhdoodii taallo oo waxbarashadoodii taallo oo ninka ardayga ah iyo ninka macallinka ah meel kasta uu joogabo intuu wixii uu soo xasuusto uu soo baxo uu imaan karo uu ka fiirin karo oo ka arki karo inaan helno waa muhiim. waxaa muhiim ah oo kale kor u qaadista waxbarashada iyo manaahiijta aan kor u qaadayno oo ay ugu horrayso inaan qorno fartii alif mayga
inay noqoto maktabaddii ugu horreysay oo lagu bilaabi lahaa oo buwaagta ugu horreysay la dhigi lahaa oo ardayda koonfur galbeed iyo macallimiintooda ay u soo doonan lahayn inay noqoto yay noo tahay ayadana runtii waxaa sharaf weyn ah oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta tillaabooyinkii aan ka fikiraynay oo maskaxda aan ku haynay oo horumarinta waxbarashada ahayd inay wax nooga bilowdeen ayna socon doonaan insha allahu tillaabadii koowaad iyo labaad iyo saddexaadba aan mari doonno baryoritiga annaga koowaad u ahaa waxbarashada inaan kor u qaadno marka waa qaybta ugu muhiimsanayd waxaan jeclahay hadduu ilaahay yidhaaho maktabaddii ugu horreysay oo lagu faano oo koonfur galbeed inaan samayno inta ay ka dhisanto maantana aan dhagax dhigno dadka reer koonfur galbeedna meel kasta ay joogaan ay ka faa'iidaan baydhabo keliix maaha ninka marka jooga uu u soo baxo kan xudur jooga uu soo baxo uu yimaado uu ka faa'iidaysto maktabadda wixii uu hayana uu keeno wixii uu uga baahdana uu ka helo yaan ka shaqayn doonaa insha allahu waxaan rabaa inaan halkan si gooni aan uga mahad celiyo dhallinyaradan isxilqaamay oo wakhtiga dheer aan isla soconnay oo reer koonfur galbeed uu hogaaminayo brofesor kuusow runtii annaga naftirka annaga waxay noo tahay dhiiragelin weyn haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed dad aqoon-yahano ah oo isxilqaamay oonan waxba rabin oon dan kale lahayn oo dalkoodii dadkooda inay hormariyaan rabaan waa koowe waana wax lagu farxo annaga naftirka annaga wakhtigaan ay nagu soo aadeen iyo jaaniskaan aan u helnay farxad iyo dhiiragelin gooni ay noo tahay soomaaliya markii ay burburtay dadka dibadaha jiro oo jaaliyadaha deegaanay ka soo jeedaan nin kasta deegaankiisa uu ka soo jeeday waxtar fiican buu ka sameeyey dadkii aqoon-yahanaha jaaliyadihii dibadaha joogay yurub ha joogeen maraykan ha joogeen meel kasta ha joogeen annaga ani shaksiyan waddanka kama maqnayn waa joogay 30 sano hal marna baydhabo kama bixin haddaan ka baxo xamaraan tegaayo marxaladihii kala duwanaa oo la soo maray oo dhanna kulli goobjoogaan u ahaa wixii dadkan ay soo mareen siyaasadda iyo wixii marxalada ama dhib ah ama abaara ama colaada ama maxay ahayd siyaasado kala duwanaa intaba waa joogay waxay ahaayeen dadka Soomaaliyeed runtii aadan uga xumahay dadka ugu gurmadka yar ay ahaayeen dadka reer koonfur galbeed oo diasporada Professor Kuusow si gooni aan ugu mahad celinaynaa ku dayda ha isku mashquulin adinka 24 saac haddaa adinka isku mashquulshaan oo isaysataan oo hebel baa jaaliyadda loo dhiibay iyo hebel looma dhiibaayey iyo qabiil aad ka fikirtaan inaa annaga waxna tartaan iska dhaaf oo aqoontiina aan ka faa'iidaysanno iska dhaafe adinkaanan hataa waxba intarayn mustaqbalkiinaa dhumaayo marka waxaan rabnaa midnimadiinna ka shaqeeya aqoontiinna sidii aan horey u ballan qaaday maalinkaan inta imaanayay oo ahayd inaan diyaasbarada soo dhoweyn doonno aqoontooda ka faa'iidaysan doonno sanad kasta aan shir u qaban doonno maxay ahaydee aan dalka ku soo dhoweyn doonno maalgashiga iyo horumarinta dalkana ay qayb ka noqon doonaan diyaar baan sidii u nahay oo diyaar aan kugu nahay dalka ku soo noqda aqoontiinna keena wixii aad soo barateen keena maalgashi keena ka faa'iidaysta ummaddiinnana u faa'iideeyey Professor Kuusow aad iyo aad u mahadsan yahay asagii saaxiibadiis nimanka dhalinyarada oo aqoon-yahanada oo ayaga laakiin localka oo aan diasporada ahayn oo inta joogay oo ayagana u istaagay inay dadka walaalahooda ah ee reer koonfur galbeed ay aqoontooda iyo taladooda ay geliyaan oo ay kor u qaadaan waxbarashadooda ayagana aad ugu mahadsan yihiin hebel ma dhihi kari badri abuukar badri waa maqan yahay halka gabadh oo ku jirta gabadha ugu fiican oo ugu gurmadka badneed ayadana waa mahadsan tahay moona waa maqan tahay yaasiin saasoo kale waa joogaa ninka la yidhaaho cabdirashiid intii aan ka bartay waaye iyo intii kale oo qarsoon oo ku jirta ayagana aaday u mahadsan yihiin dadka kalena kulli waxaan leenahay dhallinyaradaas ku dayda haddii la isxilqaamo oo laisku tashto cabdinuur oo asagana dee shaqo kaloo zaa'ida asagana haayey oo asagana ka mid noqday nin walbaba asagoo shaqadiisa haysto yuu ka mid noqon karaan tiimkan aniga anoo madaxweynihii koonfur galbeeda
yaan si gooni haddana uga mid ahay tiimkan soo sheegay professor Kuuso si aan u horumarino dadka annaga aan uga shaqeyno si waxbarashada kor loogu qaado marka guud ahaan dadkaas dhalinyarada aad aan ugu faraxsanahay shaqada wadaan aad iyo aad u mahadsan yihiin garab baana idin nahay dadka reer koonfur galbeed oo dhan waa in kala shaqeyn doonaan shaqada fiican oo wadaan aad ugu mahadsan tihiin maamulka degmada iyo wasiirada dawladda koonfur galbeedna sida ay u soo dhaweeyeen oo kala shaqeeyeen ayagana aad u mahadsan yihiin saxaafadda iyo dadka inta ka soo qayb galayna kulli waa mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah